السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيرت كحران channelkan أحمد أرقدني kusoo dhawaada muuqaal cusub. maxaad ka taqaanaa ilbaxnimadii islaamka? kama hadlayo dagaaladii dhacay iyo diintii la faafshay, balse waxaan ka hadlayaa barashadii cilmiga adduunka ee ka dhigtay muslimiinta kuwii ugu cilmi badnaa 8 qarni. dhimashadii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa la wareegay khilaafadii muslimiinta Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Abubakar as-Siddiq waxaa soo wajahay dhibaatooyin badan, wuxuuna ahaa fikirkiisu ka saaridii ciidankii Ruum iyo Furus jasiiradda Carabta. balse Abubakar as-Siddiq waxa uu geeriyooday isagoo aan dhamayn hawshii. geeridii Abubakar as-Siddiq kadib waxaa khaliif noqday Umar ibn Khattab, kaasoo ku guuleystay inuu ka saaro labadii dowladoodba jasiiradda Carabta, waxaana sidoo kale qabsaday Qudus. haddii aanu imaanay xilligii uu Mucaawiya khaliifka ahaa, Mucaawiya dhimashadiisii kadib waxaa xilka la wareegay wiilkiisii, taasi oo bilowday inay khaliifadii noqoto mid la iska dhaxlo. waxaan xagga ka soo baxay boqortooyadii Umayyiyiinta. boqortooyadii Umayyiyiinta wax badan ay ku soo kordhisay muslimiinta, waxa ayna qabsatay ilaa iyo Andalus. waxa ka dambeeyay boqortooyadaasi boqortooyadii Cabbaasiyiinta, taasoo xilka saartay xagga cilmiga. xilliga Cabbaasiyiinta waxa ay muslimiintu bilaabeen turjumaadii buugaagtii dadkii ka horreeyay, waxaana halkaa ka bilowday kordhintii cilmiga. waxa ugu waaweynaa magaalooyinka cilmiga laga baran jiray Baghdad iyo Qurduba oo ku taala hadda Spain. muslimiintu 8 qarni waxa ay alifeen wax badan, waxaana ka mid ah xisaabta, gaar ahaan aljabra iyo nambarka 0 oo ay muslimiintu la yimaadeen. waxaa kaloo ka mid ah caafimaadka iyo cilmiga xidigaha iyo meerayaasha. waxaa laga yaabaa inaad u haysato cilmiga aan ka hadlayay in ay reer galbeedku ugu horreeyeen oo ay iyagu bilaabeen, muslimiintuna ay faafin jireen diinta islaamka bes. dhabta ayaa ah in muslimiintu ay gaareen heer boqoradii reer Yurub ay u soo dirsadaan ilmahoodii dhulkii muslimiinta si ay wax u bartaan. caalimkii Ibn Sina ee ku takhasusay cilmiga caafimaadka ee reer Yurub ugu yeeraan Avicenna ayaa ah caalimka qoray 5 kitaab oo caafimaad, kuwaasoo loogu yeero Kitaabul Qaanuuni, taasoo ka mid ah kitaabadii ay dhakhtaradii reer Yurub isticmaali jireen in ka badan 7 qarni. qarniyadii ugu dambeeyay waxaa muslimiinta ku yimid dibdhac aad u weyn, kaasoo keentay in reer Yurub qaataan cilmigii muslimiinta, sidoo kalena ay ka soo baxaan mugdigii ay ku jireen, kaasoo keenay meesha aan maanta joogno oo ah tiknoolajiyadda caalamka kiilgishay. xilli ilaa hadda muslimiinta ay wax walba ka sugaan reer Yurub, hadday ahaan lahayd cunto, dhisid, hub iyo wax walba ay dad u baahan yihiin si ay u horumaraan. intaas ayay noogu eg tahay muuqaalkeennii maantay. intaa ku kulmi doona muuqaalkan lamida, waxaan idinkaga tegey. السلام عليكم ورحمة الله